dowladda Soomaaliya ayaa ka hortagtay hub sharci darro ah oo la soo gelin rabay dalka. Xogo muhiim ah oo ay heshay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa muujinaysa in hay'ado ajaanib ah oo ka soo jeeda dalal shisheeye iyo qolo Soomaali ah oo isbahaystay ay maalmahan isku dayayeen soo gelinta hub culus iyo rasaas fara badan oo sharci darro ah iyadoo aan la marsiinin habraaca sharciga iyo hay'adaha kala duwan ee xukuumadda federaalka Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya waxa ay leedahay nidaam adag iyo habraac sugan oo ku saleysan sharci oo loo maro soo gelinta hubka kaas oo lagu xaqiijinayo halka uu ka imaanayo ujeedka uu u imaanayo ilaa iyo keedka dalka laga geynayo. Hay'adaha ammaanka ee qaabilsan ka hortagga hubka sharci darrada ah ayaa gacanta ku dhigay hub la qorsheynaya in si qarsoodi ah loo soo geliyo dalka. Ujeedka loo soo gelinayo hubka ayaa ahaa in lagu qalqalgeliyo nabadda iyo xasilloonida dalka, taasoo ah duulaan cad oo lagu soo qaaday madax-bannaanida iyo xasilloonida Soomaaliya. Xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa haatan ku howlan baaritaan adag oo lagu xaqiijinayo hubkan culus iyo rasaasta sharci darrada ah ee dalka la soo gelin rabay iyadoo aan la ogeyn cidda loo waday. Baaritaanka ayaa lagu xaqiijin doonaa sababaha loo keenay iyo waqtigan waxa ku soo beegay hubkan sharci darrada ah ee dalka la soo gelinayay.